بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada xarunta la talinta caafimaadka Soomaaliyeed. Ciwaankeena maanta waa wacyigelin deegaanka iyo caafimaadka. Deegaanka iyo caafimaadka waxaa ka dhaxeeya xiriir aad u weyn. Haddii deegaanka dhibaato ay ku timaado, waxaa sidoo kale aan ogsoonahay in ay dhibaato ku imaanayso caafimaadka dadkii deganaa deegaankaas. Haddaba waa maxay waxyaabaha deegaankeena dhibaatada ku keena? Jaridda dhirta ama geedaha. Dhirta oo deegaanka laga suuliyo waxa ay dhibaato caafimaad ku tahay isbeddelka cimilada. Bacda ama caagadaha. Isticmaalka deegaanka ee bacda lagu isticmaalo waxa ay dhibaato ku keeni kartaa in ay suusho qaar ka mid ah macdintii dhulkaas u lahaa. Sidoo kalena bacda waa waxa balaastikada ugu adag ee jiri karta waqti aad u dheer, taasoo nabaad guurin karta dhirta. Xoolahana dhibaato u keeni karta in ay cunaan. Qodobka 3. Qashinka oo xaafadaha lagu dhex gubo. Taas waxay ka macno tahay in carbon monoxide lagu sii daayo hawada xaafadaha. Haddii guri walba hortiisa lagu gubo qashin, waxaa ka dhalan kara carbon monoxide badan oo is aruursata. Taasna waxa ay dhibaato ku tahay deegaanka. Qodobka 4. Muqaadaraadka oo ku bata deegaanka. Sidoo kale muqaadaraadka waxa uu keenaa dhibaatooyin xagga dhimirka ah. Wuxuu kaloo leeyahay dhibaatooyinka deegaanka, maadaama markii la cuno lagu soo daadiyo deegaanka, maadooyinkiisa kiimikaaliska ahna ay nabaad guurin karaan dhirta kale.